بسم الله الرحمن الرحيم halka kan goobtan waa goobtii caduureed waxaan ku soo dhaweynaynaa Saacid Muuse Axmed iyo xildhibaanka Cabdi Maxamed Cabdi Xasan gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa waji furan inta ka bacdi waxa weeye codka waa siinay oo soo ma siin كويستا سعدي موسى أحمد iyo عبد حسن سحرة waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waji furan aad iyo aad baanu mar labaad iyo mar saddexaadba aanu idinku soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan idin leenahay waa caduur waxa lagu aan ku soo dhaweynaynaa laba xildhibaan oo muhiim ah labada xildhibaan oo codku ka dhaxayo iyaga oo ah xildhibaan Saacid Muuse Axmed iyo xildhibaan Maxamed Cabdi Xasan oo golaha deegaanka iyo baarlamaanka ku soo Saacid waa golaha baarlamaanka Maxamed Cabdi Xasan waa deegaanka kuwaas oo ku matali doona dooxada labada gole mid walba xilka uu leeyahay waxa dadka dooxada mas'uul uga ah xildhibaanka dooranaysan waa mid idin albaabkoodii idin furay labada xildhibaanba waa kuwa danihiina wax ka qabanaya waa kuwa aan albaabada idinka xiranayn codkiina labada xildhibaan sida ugu garateen ku guuleystaan idin leenahay anuna sida insha Allah labada musharax iyo kaaliyaashooda iyo gargaarayaashooda Ilaahay baa gargaar lehe waxa weeyaan arrintan halka ku qabateen maalinteeda laga abaal gudi doonaa maanta xilba idinka idin la gudboon xilka idin la gudboonna waxaanu rajaynaynaa inaad si bishaaro leh uga soo bixi doontaan goob kasta ee ka mid ah gobolka Ceergaabeed ee sanduuq yaallo markaan tusaale yar soo qaato waxa weeyaan inagu Soomaali markaynu nahay meeshii ama awr lagu qalo ama hal lagu qalo qalantideedu waxa weeyaan sarara iyo kuruska labada xildhibaan sarara iyo kuriska waxa uga dhigan idinku codkiina siiya codkiina ma siiseen annuna waanu ku taageersanahay waanuna siin doonaa khayr badan waan idin rajaynaynaa waxaanu Ilaahay idin weydiinana maanta waxa ugu roon roob Ilaahay waxaanu idinka manay roob khayr qaba Ilaahay degdeg inuu idin siiyo mid caam oo khaas ah dhamaanteen inuu ina seebaan Ilaahay looga rajaynaa marka hore way salaamaynaa reer caduureed waxaanu idinka mahad celinaynaa sida quruxda iyo sharafta leh ee aad noo soo dhaweyseen Allah idinku soo dhaweeyo jannatul firdawsa inta ka bacdi waxaanu idin wadnaa laba xildhibaan oo aanu iskala qooranay bariga reerka la yiraahdo Muuse Ismaaciil ama deegaanka Ceergaabo reerka magaca leh ugu xiga iyo galbeedka reerka ugu xiga baanu isla qooranay kuwaas oo aanu isla dooranay karti iyo aqoon iyo dabdaba ay dadka u dabacsan yihiin iyo waxqabad labadaba hore looga arkay oo haddaan hore ugu sii tallaabsado Saacdiyaa Muuse wadooyinka aynu manaafacaadsanno taa isku xidha Burco iyo Ceergaabo Tamayr iyo Ceergaabo intaba waa ka hawl gashay sidoo kale Maxamed Cabdi Xasan waxa weeye bare aflixiyay ka bilaabay baristiisa waqtigii 19 aflixiyay arday ka badan kumanaan oo maanta la manaafacadsado waalidkii dhalay iyo ummadda iyo dalkaba waxay idin adeegi doonaan idinka waxay idinku kala adeegi doonaan labada golaha deegaanka Ceergaabo oo idinku adeegi doono Maxamed Cabdi Xasan iyo golaha baarlamaanka oo ay inagu adeegi doonto Saacid Muuse dhammaan waxa weeye adeegayaasha reer Sanaag gobolkan oo dhan sida marka ay tahay waxaanu idinka codsanaynaa inaa 31 May siisaan fartiina oo ugu hiilisaan manala qaadateen waxaanu soo dhaweynaynaa oo kale labada xildhibaan ee aanu wadnay ee ogeyneen ee labada qaaliga yihiin ee taanin waanu qaadanay idina waa nala qaadateen ها ودد قلمة
waa dad miyirkooda iyo maankooda iyo maskaxdooduba buuxaan sidaa weeye sidaasaanu ku qaadanay dhinaana waateen taanka bacdi waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol dadweynihiinana soo dhoweeyey ee heer caduureed labada yadaa musharax ee isku sidkan ee labada beelood isla soo doonteen ilaahay ha idinka jasaay mariyo codkana allaha nagu guuleeyo idinkuna codka ku hubsada xagga la mooyee codkeennu leexa maayo laakiin dee way iska badan tahay howluhu waynu ognahay laakiin idinku diyaar baa tihiin waana idinka guddoomanay saad noo soo dhowayseen iyo saad codka noo siinaysaanba ilaahayna hadduu nagu guuleeyo idinka maqnaan mayno anna deegaankaan idiin joogaa walaalana waxay noo joogtaa haddii alla yadhi golaha sare waxbay naga haqnamayso waa qof markeedii horeba iyadu tabarruc u shaqayn jirtay hay-adaha iyo dadka aniguna wixii dayna kaga xidhan deegaanka oo heerka kaga xidhmo yoonis muuse waxba hakna maayo wixii taalkayga ah wanaagsan baa maantii hore noo soo dhowayseen maantana si la-eg baa noo soo dhowayseen ilaahay ha idinka jasaay siiyo waxaynu ku ballamaynaa codkayga awal baynu ku ballansanayna in loogu rido inankaasna walaalkeena 308 waa kaa nambarkiisu waana laydiin soo wada gudbiyey labadayada maanta way noo guushu waa labadayada inoo saaran tahay gacantiinayna ku jirtaaye inoo soo tuura sida kale waa mahadsantihiin aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa kolay abaalkeedana waa gudi haddii alla yidhaahdo halkan waxaanu ku soo dhowaynaynaa musharaxiinta kala ah musharaxa sacdi muuse axmed iyo musharax maxamed cabdi xasan oo loo yaqaano saxaari waxay u kala sharaxan yihiin labada gole oo kala ah golaha sare ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka iyo golaha deegaanka ay u kala sharaxan yihiin waxaanu leenahay iyo golaha wakiilada waxaanu leenahay soo dhowaada magaalada tan waxa weeye waa jiidali waa arkayseen heesaha la qaadiyey ha mushaaxdo ha murqaanto tan waa miidha jiidaliyeed aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada waxaan leenahay sacdi iyo maxamed codka ma la siinayaa codka jiidali waxay diyaar u tahay inay maxamed wuxuu ka tirsanaa bahda waxbarashada wuxuu ahaa macallimiinta dugsiga hoose dhinaca wax ka dhigta sidaa darteed ardaydu aad iyo aad bay u garanaysaa markii warkiisa loo sheegay ama ay hore taariikhdiisa ay u hayeen wuxuu ahaa mid ay aad u garanayaan sacdi iyadoo hore halkan u soo martay taariikhdooda mid maanta la sheegayo ma waa taariikh gobolka Sanaag aad ugu daweyn weeye ama Somaliland ba aad iyo aad ugu daweyn weeye Sacdi Muuse Axmed insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in ay noqdaan xildhibaano soo baxa oo ku soo baxa labada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ay ku soo baxaan insha Allah saasaan rajaynaa mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya afka wafdigan dhammaan dadweynaha reer jiidaliyeed iyo deegaamadeeda oo ay ugu horeyso bahda waxbarashadu hadduu yahay bare iyo hadduu yahay barteba intaa kadib waxaanu idiin wadnaa waa kow bari iyo galbeed la isku raray malaatan oo kale oo laba xildhibaanoo noocaas oo kale ah waa aragteen kuwa isku reera kuwa isku degaana kuwa isku xisbiya laba bari iyo galbeed ka kala yimi oo laba xisbi ka kala yimi oo isku sidkan malaa waa kuwii koowaad aa aragtaan waa taariikh hormaysa waxaa sababay waxyaabo fara badan haddii oo ay u markhaati yihiin sadciyaa muuse astaanteedu waa qalinka waa la yaqaanaa waa aqoon iyo waxbarasho maxamed cabdi xasanna waa bare oo waa macallin halkaa way iska asiibeen
midhodhalka sacdiyaa muuse annagu aad idinkaa naga badiya oo isku reer bariya wax badan idinka sheegi mayno ninkaan hore u ogeynna waxaan isleeyahay maanta inuu ogaado maaha ninkii hore u ogaana abaalkeeda waa hayaa maanta ise uga fadhiyaa in loo gudo waxaan u malaynayaa mid ku siiya aqoon mid ku siiya abtinimo mid ku siiya magacii muuse mid ku siiya derisnimo iyo jaarnimo intaba inay ka helayso cod fara badan oo aanay deegaamo badan ka helin waxaan ogahay halkan inay joogaan rag badan oo waayeelah oo weliba kaftama oo aanu kaftanno oo aad u dhaadheer oo ay hooyadoo tahay iyaga waxaanu kaftami doonnaa maalinta codka halkan laga ogaada sacdiyaa muuse ay ka heshay maalintaas ayaanu kaftami doonnaa hadalka waxaan ku gebagabaynayaa reer bari haddaad tihiin rag iyo dumar waxqabadkeedii hore waa og tihiin maantana farteeda ugu hiiliya intaasi waa sacdiyaa muuse maxamed cabdi xasan waa bahda waxbarashada jiidali waa degmada qura ee leh ilaa elementary ilaa secondary jaamacadduna hadda u soo socoto aad iyo aad bay ugu horumartay waxbarashada sidaa daraaddeed waxaanu ka filaynaa isagana inay ku siiyaan aqoonta iyo mutacallimnimada iyo bahda waxbarasho laakiin qabiilnimo waxba kaga dooni mayno intaa kadib hadalkayga waxaan ku gunaanadayaa idinku sabciyaanu idiin keennay wixii abaalkeedu ahaa iyo wixii derisnimadeeda ay ahayd iyo wixii aqoonteedu ahayd ayaa wax ku siinaysaan waa jiidaliya waynu naqaanaayo barwaaqadoo shiikh baynu dul saaran oo barwaaqadii duniday taalla inta yarayna ka dhimanna allah inoogu kordhiyo waxaan idiin sheegay maalintii horena waa anaga idiinnimo suucan baa noo soo dhoweyseen maalintii horena waan ka hadlay axmed maxamed oo igu sidkan aniga in la ila caawimo oo isagana codka la siiyo annagana codka waa idinka sugayna awalba jiidali waa magaalooyinkeennii waan ogahay dad badan oo tartamaya dhulka inay marayaan waxaanu codsanaynaa uun balqodo walayba annagana noogu dadaal weliba dumarka waxaan leeyahay hadhow ma hadashaan dumarka siyaasaddii baa loo diiday ma tidhaahdaan fartiinay ku xidhan tahay maanta muuse bixi kuma xidhna nin kalena kuma xidhna cid kalena laga dooni maayo waa gacantiina haddaana soo saartaan inaan idiin hiilinan ku ballan qaadno dhallinyaraduna waa la mid meelo iminka wakhtigan wax dhuxul shita iyo wax qaad cuno way isugu tagteen inaanu runtii haddii ilaahayna geeyo meesha isku dayno inaanu dhallinyarada hagno oo ka bedelo halkan ay ku socoto future u samayno aanu ku ballan qaadno horumarka dhallinyarada iyo dumarkuna waa horumarka dadkeenna raggu kama hadho wixii dalka ku soo kordhay rag iyo dumar iyo carruur iyo ciroolo waynuu simannahay dee hala dadaalo baanu leenahay hala dadaalo oo dadka aqoontooda ha lagu doorto oo qofkaad wax ka sugayso wax ku dooro qabyaaladda iska daaye meel ina gaadhsiin weydayo joognaa goobta dabable waxaanu ku soo dhaweynaynaa sacdi aw muuse axmed maxamed cabdi xasan
aba iyo khiyaarta la socotaanu ku soo dhaweynayna waxaan ku salaamaynaa soddonka qur-aanka iyo salliga nebiga. waxaanu leenahay waa dalkiinni, dadku waa dadkiinni, waxaanu leenahay guulaysta akhriya adduunba waxaad doonaysaan, waxaad jeceshiin hawaayina. codkana waanu haynaa, waa u codaynaynaa, diyaar baanu nahay rag iyo dumar. waxaanu leenahay soo dhowaada, gacmo furan, qalbi furan baanu idinku soo dhoweynaynaa. goobta waxaa la yidhaahdaa dabablehe, gaar ahaan digbax, geedka waxaa la yidhahdaa kulan magaciisa. waxaan leenahay soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. waxaan idinku soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, qalbi furan iyo daacada. waxaan soo dhoweynaynaa musharaxiinta Sacdi Aw Muuse, wakiilka baarlamaanka, iyo musharaxa deegaanka Maxamed Cabdi Xasan. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaynu guusha helnaa. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaynaan tacabkaa ku khasaarin, aynu ku guulaysanaa. maalintu waa yoom wanaagsan, ilaahay waana ka aqbalayaa. hadalka badin maayo, waxaan la sugayaa meesha mucda ah. anigu nin dadka iyo dalka kala yaqaan baan ahay. mucdaan hadalka la sugayaa, laba kelmadoodun baan odhanayaa. kolley waxaan maqlay odhaah tidhi bey la wada maqal. cidda qolada looda iga badiso waa layga badiyaa. beygaas wuxuu ahaaye waxaan uga socdaa laysku maqal Yoonis Muuse iyo Maxamuud Xaamud. waa guul iyo nasri u soo baxay oo u dhashay labada qoys ee aynu ka kala tirsannahay, ee kala yaala labada cidhif ee galbeed iyo bari. guusha aynu hayno iyo talada aynu gaadhnay reer Sanaag ama Tolkeen ma gaadhin. waxaynu nahay feedhii bariga xigtay iyo feedhii galbeedka xigtay. neefka geelay wuxuu leeyahay feedh iyo calool ku jirto. Tolkeen waa calool ku jirto, innaguna feedhii baynu nahay. anoo hadalka intiisa badan la sugaya xarunta shurke, waxaan ku gebagabaynayaa guusheenna iyo nasrigeenna iyo magaceenna iyo magaca xildhibaanada aynu wadno waa Sabciye Aw Muuse iyo Maxamed Cabdi. in badan baa laga sheekeeyey, hadalkeeda u badanna inta dambaan ugu dhiiwanayaaye waxay ku jirtaa farteenna oo maalinta 31 May aynu xilinyaha dhexda ku xidhanno, dumarkuna ay dhexda marada ku xidhaan. sidaasoo ma qaadano. salaan ka bacdi waxaynu wadnaa inagu maanta haddaynu nahay laba beelood oo iskaashaday, waxaynu wadnaa laba xildhibaan. labadeenna xildhibaan waxaa la doonayaa inaynu soo saarro oo ay inoo qabsadaan ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka. sida la sheegay ama si hareba laydinku sheegay, waxa weeye Maxamed Cabdi Xasan oo ku magac dheer Maxamed Saxare iyo Sacdiye Aw Muuse Axmed. midna laydinka warrami maayo, faahfaahinteeda waynu maqlaynay oo waa hayseen. anigu haddaan ahay ku hadlayo dhanka dhallinyarada afka Maxamuud Xaamud, waxaan leeyahay Sacdiye Aw Muuse waxa weeyaan xildhibaanad u sharaxan baarlamaanka u sharaxan. haddaanu nahay dhallinyarada Maxamuud Xaamud, codka waanu siinaynaa, waanu noo haynaa. sidaa uu sheegay inanka iga horreeyey, annagu waxaanu ka soconnaa beesha Maxamuud Xaamud, khaasatan qaybta wacyigelinta. xagga wacyigelinta waxaa la doonayaa dadka bulshada ah ee populationka iminka meeshan degaa inay waxa weeye ay ogaadaan sida loo codaynayo iyo dariiqa loo marayo. hadda waxaan sidaa warqadan waxaa ku qoran 308 qofkii weyn ee waxa weeye aan hadhow qori karayn wuxuu dhiibayaa komishineerka imanaya meesha ayuu odhanayaa i codee. waa qofkii weyn. intii kale ku ridi karaysaana way ku ridaysaa, laakiin wacyiga loo baahan yahay waxa weeye in waxa weeye labadaa xildhibaan ee isla socda ee isku lamaan in waxa weeye la soo saaro. Maxamed Cabdi Xasan Saxare isagu waa ustaad ama waa bare.
xaaji sacdiya iyaduna waxa weeye waa ustaadad baan odhan karaa ma waa maclimad waxa weeye inay dadku waxa weeye isku xidhnaadaan oo tawaasul sameeyaan oo waxa weeye wacyigelinta loo yeesho inta waaweynina inaan markaan aan codayn karayn ay u dhiibaan waxa weeye komishineerka siraaca iyo loolanku wuxuu ka dhaxeeyaa xagga siyaasadda wuxuu ka dhaxeeyaa waxa weeye dadka kale uu ka dhaxeeyaa inaynu waxa weeye labada xildhibaan midna uu tahay xildhibaanka baarlamaanka ama cudul majlis al-maxalli nawaabka ka kalena uu yahay cudul majlis al-maxalliga golaha deegaanka in labadaaba la soo saaro waxaan aad iyo aad aan ugu sii adkeynaya oo ku sii tawkiidinaya in qofku uu waxa weeye 308 na u garto qalinkana uu garto haddii uu codayn karayo haddii aanu codayn karayna inuu komishineerka u dhiibtay iyo muraaqibka markaa meesha jooga biya maxamed sanadka waxaanu samaynaynaa inaanu idin matalo dowladda hoose iyo baarlamaanka labadaba haddii laha yidhaahdo waxaanuna mas-uuliyadduna saarmaysaa labadaa reer ee isu tegey in midkaayaba meeshuu joogo halkiisa ku qaado marka waxaan codsanaynaa fartiinayna ku xidhan tahay inaynu soo baxnaa dadkii yaabiya haddaba aan kaga sii yaabsanno bahasha aan ku hubino maxay haytay inaynu ku soo baxno waxaan anigu ku talinayaa inaanad waxbaba calaamadina aad u dhiibataan dadka ninka meesha fadhiya waayo xariiq yare hadday sare u baxdo oo meesha yare intaa yare bogoska yare ay ka dhaafto xariiqdaas way gubaysaa foodkaaga markaa gashaanka guddoomiyaha waxaad tidhaahdaa iid calaamadii kaasaa ka fiican laakiin ha la hubiyo inuu kuu calaamadiyo aanu meel kale marin muraaqabkiina iyo adiguba waa in lagu tusaa muraaqabkaa la tusayaa waa inaad aragtaa inuu kuu calaamadiyo qofkaa doonaysay waxaan ku soo gabagabaynayaa waxa weeye amba faydniye aadna waxba hayfalin soo ma ahayn sheekadanu maxay ahayd amba faydniye waxba hayfalin oo labada dhinaca maanta sheekadu ma aha aniga maxay tahay maxamed in loo codeeyo inaynu laba reer oo run sheegayanahay bay dadku daawanayaane way ka weyn tahay foodkee bahashay noo adkeeye sacdiyo galbeed naga jirtayba guulle noo wada iyo waxgalkiisa hadalkiiyo markii ay goboodii inoo sheegtay go'aan baanu wada qaadanay oo loo guddoonsaday dabadeed warkii baisgaadhay oo nala ka soo guriye maxamuuda goof yalla iyo yoonis baysgalayo isma gaadhi jiri reeruhuye waxa gadal keenay gurmad baysu keengeeyey iyo gacaltideeniye gurmad baysu keengeeyey iyo gacaltideeniye gabadha iyo wiilkana inagu uga gudbanahaye war guulaystayaal bay noqdeen ee geliya labtina wax badan baad gasheen oo cid kale gacanta siiseene wax badan bayd ingeedka u tagteen oo gogol u geyseene wax badan baad guryaha sooryadii geelka bixiseene wax badan baad codkeen oo gingiman gole ku dhibteen ka soo gudubnay maanta ee waxaanse aadingar waqsiiyey gole baarlamaan oo saraynu galabta joognaaye golihii degaankananu ragoo gaanada tegaye war gul weeye soo ogaatay oo aad ku gacmaadaane wax yaroose gaarnoo abaan soo gudbinayaaye golihii degaankaoo horebaa meel naloo galayo godobta ragbaa wuxuu u galayay golaa imane war maantana guryaa kama fogaaye waan la gaaranayne waxba gabaygu iyuu ila gudbine waxaan ku soo go'iyey labadiina geeso waxaan idinku gubaabshay intaydin geeska wada jeesataan gaadh ku adkaado war goobaha ilaashada codkii baa la gadayaaye war goobaha ilaashada codkii baa lagu soo diyaargaroonay maanta inaanu soo dhaweyno maxamed cabdi xasan diyaarna aan loo nahay inaanu codka siino
aad iyo aad baanu usoo dhaweynaynaa codkana waanu siinaynaa diyaarna waanu u nahay sacdina iyana waa deegaanka iyadu xildhibaanada kala sarsareeya ee degmada iyo deegaankaba u kala socda baanu aad u soo dhaweynaynaa 100% sida kale dad doonaya bahalkii maaha in hanti ka dhaqdaan in dalkooda wax u qabtaan bay doonayaan annana aad baanu raalli ugaga nahay waana ku soo dhaweynaynaa 100% waxaanuna annana haddii aanu dadweynaan nahay sacdi xaaji muuse iyo cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo maxamed cabdi xasan baanu labada 100% soo dhaweynaynaa xafladan runtii waa xaflad sharaf leh waxaanuna rajaynaynaa inay aad qof waliba xilka uu doonayo runtii uu helo dhaqankana ay aad wax uga qabtaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba annana intaasaan ku soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa maxamed cabdi saxare iyo sacdi aawo muuse dadweynaha haddaanu nahay dooxada waanu soo dhaweynaynaa waanu halgamaynaa diyaar baa loo yahay aadna waa loogu faraxsan yahay intaas intaa weeye iyaguna waxaa looga baahan yahay waxay u shaqaynayaan dantooda iyo dalkooda iyo dadkooda annana diyaar baanu u nahay sidaasaanu ku soo dhaweynaynaa waxyaalaha badan oo la sheegayo waxay iska yimaadaan waxyaalo badan baa iska jira in dadku diyaar baa loo yahay wixii maaragtay hareeraha ah oo wax u dhimaya diyaar baa loo yahay intaa kadib haddii aanu anagu xildhibaanada la soconay waxa weeyaan arintayada aanu ku soconnaa waxa weeye hadal badan uma baana waa gacal kale maqnaan jiray iyo geela weysioloodaa weeye macnaheedu waxa weeye idinkuna waa ogeydeen codkanadna waa u haysaan warshay codka uma haysaan بارك الله فيكم عدكنا وهواسان أنت حقيقة هذا وحلو أولوك ليه أما لو أولوك ليه يسمع عنك أحد وأنت عنك أصلا وبجدد وحوي إن عدك يدور سوى لا وضع حلقة سيارة صوت دورني وصوت شيء بعدني وأينو إن بدن وضدك كان ماشي تشوقه دراسة ذكر بينوش قيمة التسعدية iskuul ka la manaafacaadayada ay loo keentay halka Sacdiyo wax badan isaga sheegay mayno maxamed cabdi xasan waxa weeye bare Sacdiyo qaabkeeda u shaqeeyo samafalka ka shaqeeya malcaamad iyo iskuulada rag dad badan buu wax baray haddana inuu xilliga masab u qabto buu doonayaa sidaas aynu ugu codeynaynaa waxa weeye waa laba mataana weeye haddaynu baasha deegaanka kan aynu nahay dhammaanteen فرص عن وجوهنا فرص عن وجوهنا فرص عن وجوهنا وعيقلين عد بس كذا عد بعد انت سكاير كي يقاب كلا عرانيو ووقت كذا لكن وحلينا كربا كالسوري دا عين موتشني تاني إنه كذا بينه عين عن كلام ثاني وحولا كواب ثاني وزان وإذا هم هشائرن لما شو أمية دي بكلام نشتيو كالسوري وارقنا لكن ما أنت aynu u hibayno labada qof maanta cod ku dhacayo annagu waxaanu idinla nimi xafladda waxaanu idinla nimi musharaxiinta aanu wadno sacdaa muuse iyo maxamed cabdi xasan saxaari waqtigii bayna ku soo dhawaaday foodka waxaanu idinla nimi inaynu qolada beeshaan la yiraahdo maxamuud xaamudna dee aynu meesha keenno aynu baranno nimanka aynu isbaranno rugteedana waa la tegey rugteenniina waatan dee maanta la joogaa macnuhu waxa weeye inaynu labadaa qof soo saaro weeye ilaahay ha ku guuleeyo waxbay ka sheegi mayno sacdina dee waynu ognahay waxay dhulka u qabatay maxamedna waa nin mutacallina waa dad aqoon-yahana oo aqoon leh waa dad dalka wax u taraya waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inay noo soo baxaan oo ay noqdaan kuwii wax ina anfaca waxa weeye maanta wacyigelintaasaynu isugu nimi
maalinta codayntaynu dalka soo saarayno farta bixinaynana waxaynu doonaynaa inaynu simug iyo miisaan leda aynu isugu nimaadno aynu ugu codayno baynu doonaynaa. waxaan leeyahay ilmaadeerayaal waa naga farxiseen waxaadna geliseen muxibo iyo kalgacal ilaahay ha idinka farxiyo. kolley waa iska maalin farxadeedoo farxaddana waxaa lagu gartaa hadalka kaftankaa ku bata. markii hore horta waa la khiyaameeyeen qoladani oo qoladayadii wafdiga ahaydoo berigii hore oo dhalinta la ahaa ayaa waxaan ahaa anigu kolley qolada jecel boodada markaa la doonayo in geed laga boodo laga sayar boqo ninka aad isleedahay xoogaa waad kaa yar uu kaa yar xooggan yahay ama kaa boodo dheer yahay baa la odhan jiray ii baalalay. horta waxayna yidhaahdeen iyagoo namoodaya de qoladii maxaanku idhaahdaaye aad laysaga eegi jiray saalax muusaa kale noo baalaleeya dabadeedna cagtayna mariyeen. wixii aanu isdiilaynay iyo wixii aanu lahayn mudankii baa la soo dhoweynayaa waxay ka dhigeen wax iyagii waxba kama jiraan. waxsaanu leenahay waa laga daba tegayaa wax la samaynayaa casuumadda kolley xildhibaanadeennu soo baxe dhaartiiba u hadhay maalintaynu ku damaashaadayno guusha iyo farxadda ayaanu xafladda dhigaynaa goof ku noqonaynaa. waxyaabaha aad ula sii yaabay waxaa ka mid ahayd waxaanu lahayn waxaynu tegaynaa shurke waa meeshii qur-aanka lagu akhriyi jiray waa meeshii diinta lagu akhriyi jiray waxaanu islahayn shallaadkii iyo salligii nebiga wala markii horeba nalagu bilaabay oo aanu nimi ayaa laydinku soo dhoweynayaa. waxaanu la kulannay wax la yidhi nin baa sakaaro u dhigtay dabin goordhow buu is yidhi soo eeg wuxuu uga tegey biciid markaasuu la yaabay wuxuu yidhi geesa weynow maanaa kuuba fadhiyey yoonis muusow cayaarahan kala nooca ee waayeelka sujuwaya ay ka mid ahaaye qasbaaye iyo nooca ay tumayaan idinkama fadhiyin waa arrin aad iyo aad aanula yaabnay. intaasi waa kaftanka iyo farxadda. inta kale waxaynu nahay tol kala fogaa oo dheer kala jiray maqal mooyaane aynaan isdhaqan aqoon. anigu kuma cusbi dabablehe waa dhif guri aan laygu casimin iyo guri aanan u hoyan iyo nin aanan haddeer halkaa fadhiyo oo aanan garanaynin waa dhif. laakiin tolka kale isma yaqaano. arrintan hadda ma aha mid aynu u qorannay ama aynu ku kooban oo keliya dhacdo arrintan maanta ee doorashada waxaynu doonaynaa mid inoo madax dhasha oo aynu dadku inagaga daydaan oo tolkeen waa kala daadsan yahay allaha isu soo ururiye aynu noqonno kuwii ururiya oo aynagu soo xaydaantaan oo inagu soo xeertaan oo aynu hoggaanka iyo talada u qabanno. sidaa ma qaadateen? ballankeennu waxa weeye labadaa xildhibaan ee aynu leenahay oo soo doorannay annagu xaggayaga ka maxamuud xaamud ahaan waxaanu qabnaa Sabca Aw Muuse inay tahay xildhibaanad u sharaxan maxamuud xaamud. uma qabno inay tahay mid cid kale u sharaxan iyo mid yoonis muuse u sharaxan. sidaa daraaddeed waxaa nagu waajiba dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar codkar iyo cirooleba in aanu codkayaga oo hal dabalah siino. idina saxare saasoo u siin maysaan. ilmaadeerayaal hadalka waan badiyey raalliga ahaada. waxaan ku soo xidhayaa xoogaa yaroo kaftana kolley qoladii hore wafdiga ahayd markii aanu marayna dhulka waxbay eegayeen dhulkay eegayeen dhul bay doonayeen iyo deegaan iyo dhulay degaan waa u haynaa waa ugu baaqnay. annagu se waxaanu doonaynaa wixii qabiilo dooni jirtay. warkii aanu idiin keennay wuxuu ahaa reerka la yidhaahdo maxamuud xaamud iyo reerka la yidhaahdo yoonis muuse inay wax wada galeen oo ay wada galeen inay isgarabsadaan isna gargaarsadaan gacnahaba isqabsadaan wax allaale wixii bini aadan uu isku taakulayn karana ay isku taakulayeen. heshiis horta sidaasaa lagu galay. 7 qodob oo saxiixan oo aanu idinku metelay rag iyo dumar mid yar iyo mid weyn deegaanka dabablehe dhammaantii. Soomaalidu waxay tidhaahdaa wixii umusha u dana ayaa ilmaheedana u dana. deegaanka dabablehe anigu cid kastaba ha ahaadeen baan ka qabsanaya. 7 qodob ayaanu ku heshiinay. 7daa qodobna midaan isku martiyeynay midaan iska baryeynay midna maaha.
wuxuu ahaa mid waliba qodob waliba wuxuu ahaa qodob reerka kale ula soo oomay dabadeedna meel dhexaanu isugu keennay wacad baanu wada gallay waxbaanu wada qaadannay xeer baanu samaysannay idinkoo maqan baanu idinku matelaynay beeshoodii bay nagu dhex marinayeen weliba iyagu goob allaale goobtayna mariyaan way isku dhaarinayeen laakiin anigu haddeer idin baan itikaafka gacanta saara waayo sababta wax kale ka aaminsan yihiinoo waxay isleeyihiin waxaanu ku wacyigelinay yoonis muuse ballankuu yaqaana ballankuna dee waa diin iyo tikaab horta ballankiibaa inoo yaal oo aanu idiin qaadnay in badanna waxaanu ku faanaynay xere maxamed xamed markaanu maraynay annagu dhaar uma baahnayn dhaartayadu waxa weeye waa ballankaasaanu soo qadnay horta ballankii waa inaynu oofinaa qodobka labaad oo aan idiin sheegaynaa waxa weeyaan labadaa xildhibaan waa golaha deegaanka iyo golaha baarlamanka shuruudaha iyo heshiiska aanu ku wada gallay waxa weeyaan golaha deegaanku hadduu soo baxo waa soo baxayaaye labadeenna reer iyo ciddii mandaqadda inagu noolba wuu ku meteli doonaa golaha baarlamaankuna labada reer xitaa inagu caalamka u dayrin mayno sacdiya awalba waxay ku qaban jirtay qabyaalad waxba kuma bixin jirin waxay wax ku qaban jirtay muwaadilnimo iyo bini'aadannimo iyo wixii ilaahay xigmad dheeraada uu siiyey si siman bay dadka wax ugu qaban jirtay waayo sababtaa goobahaanu marayna goob walbi waxbay u sheeganaysay iminkana sidii bay ka sii kordhin doontaa aadna waxaan u aaminsanahay dadka waxa la yidhi odaygeenni shiikheenni xaaji maxamuud ayaa markaynu malcaamadaha isugu nimaadno ayaa waxoogaa jiilaal dhulku geeduhu caddaadaan ayaa wax loola jiray xaaji maxamuud sanadka talow ma abaar baa mise waa barwaaqo tusaale ahaan baasaa loo weydiin jiray wuxuu oran jiray carabka dadku muxuu u badan yahay hadda wixii carabku dadka uu u badan yahay ayay noqotaa buu oran jiray carabka dadku wuxuu u badan yahay waanu in badan dhegaysanay hadday baalashla tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo hadday qabiilada aynu tartamayno tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday waayeel tahay meel kasta waxaanu ka maqlaynay arrintaa aynu wada gallan liajligeed xildhibaanadaas waa soo baxayaan aradka haddii laga yidhina wixii aradka laga yidhaahdona samadaa laga aqbalaa marka insha allahu arrintaas waxaan isleeyahay waa mid samada laga aqbalay waxaan idinku boorinayaa ninka aan maxamed cabdi xasan ninkii aan u codayn oo u calaamadin warqaddaa saciyana ayuu calaamadin waa ballan furay qofkaas waxaanu leenahay si siman ha loogu calaamadiyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa habeen dhawood baan waxaan ku maahmaahayey haddii gugu cusbaado oo uu onkodo oo hillaaco oo gugu wanaagsan yahay inta badan wax la arkaa dhul aan roobba la bidayn oo geeduhu dheeraadeen roobkaa wax la yidhahdaa suwis codka innagu aynu maanta gobol sanaag ama degmada gobolka ceergaabo ama degmada sanaag aynu ka malaysanaynaa waxa weeyaan waa cod suwisa baynu ka malaysanaynaa waana ku soo baxaynaa keenna iyo kan suwiskaaba suwiskana waxaa lahayd nin nasiib leh dhaqaalaha leh qiimaha leh quruxda leh aad nagu soo dhaweyseen si fiican baad noo soo dhaweyseen codkana sidaasaanu idinka filaynaa inaad noo siisaan aad iyo aad baan anaguna idin siinaynaa aad iyo aad iyo aad iyo aad waad inaad noo siisaan codka haddii laha yidhahdo ilaahay qadaro oo noogu dadaashaan aad iyo aad inaad noogu dadaashaan oon qof naga baaqan halkaa maxamuud aamud haddii 5 kun ka soo baxdo 5 kunna waa ina dabile ka soo baxdaa waa la isu miisaamaya codkeenna waa la isu miisaamaya haddii hadduu adeerkay maxamed cabdi xasan cod bato sadcina yaraato annaga xilna saaran weeye annagaa ballantii furnay idinkuna sidaa u adkeeya maasha allah sidaa noo soo ajiibteen sidaa u soo agaasinteen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa maxamed cabdi 308 weeye sadcaaw muusana waa qalinka kuma qorra sawirku istaantoodu waa nooca qofkii aan calaamadin karayn ama indhaha ama qoraalka ha u dhiibto qolada uga mas'uulka kibishirka fadhida yadaa u calaamadin codku waa 2 jeer maaha mar maaha waa 2 jeer waa 2 warqadood golaha deegaanka waa mid golaha baarlamaankana waa mid madkad oo calaamadso golaha baarlamaanka ha bixin wali mid baa harsan talabaad ha lagu dhiib talabaad marka lagu dhiibo sanduuqa ku reesto hubsato hadii lagu calaamadiyo waa la tusaya waa shaacinayaan qolada kibishirka hubiyaha la tusaya kibishirka qolada ka soo la tusaya munaaqibka la tusaya markaas la xareynaya waa kaad wakiilad taasi waa taa annaga qolada maxamed xamed waxaan isku ognahay wacad meel baan wada maray hal ood baan ka wada baxana illi kaliya waa ilinta sabciya
idinkuna sidiina waddankii waraabu yaanu inii soo dhicine ka adkaysta oodta hal ilin ka soo baxa annagu waxaan leenahay qoladii culimmadeenni baan la gallay bixi mayno yar iyo weyn isku mid baanu waanu ku wacdisannahay taasi waa naga taasay naga tahay ininkan idinka fili mayno codkin inuu meel kale marayo idinkama shaki qabno hadhow sanduuqa ka soo xorooda dabablehe si gaaraanu eeganaa il gaaraan ku haynaa annagu ka goob ka soo xorooda iyo cadayo sida si leeg bay u eegaysaan waxa la nimanka halkaan axdiga wada galay toy maxaa ka soo xorooday waxay la tahay inaan cod meel kale naga maran wax naga khaldama mooyee khaladkan inaga ilaaliya labada musharax baanu nahay labadayadaba amar alla iyo ilaahayun baana keenay tolkaanana keenay anigu haddaan idiin sheego sharciyadii halka waa laga yaqaano idiin sheegi maayo intaasoo sanana dee way shaqaynayso hay-adaha UNK meel walba way u shaqaynaysay oo barwaaqo ah xildhibaanyadana waxaan qabaa maanta wax iyadoo halkaa maraysto aan baahi u hayn aqoon iyo waxbarashana u hayn dhaqaale ka doon iyo magac ka doon aan u hayn waxay u timid gobolka cadilaantiisa wixii ka dhiman inay xeerarka sharciga ka bedesho xeerarka sharciga ee gobolka ka xaniman inay wax ka bedeshay ku tala gashay oo u timid gobol Sanaag 12 xildhibaan ee gobol Sanaag ka sharaxan waa qofta ugu mutacallisan waa qofta ugu waayo aragsan waa taqaaniino cidna idii sheegi mayso sharciyo amar alla iyo ilaah baa keenay shaqo maanta uma baahna ay shaqaysto waad aragtaan dhaqaalana uma baahna waxay saystiri gobolkaaga waxa xeerarka lagu caawiyay ee aan waxba ugu soconayn wax ka bedel anigoo macalinka ah markii hore waxaan ka ahaa meesha gudcaanood la yiraahdo waxaan ka soo bilaabay 93 markaan dalka soo galay oo laba sano joognay baan bilaabay macalinimada waxaan ugu dhigi jiray geed hoostiisa dhagax baan ugu dhigi jiray nimankan macalinimada u bilaabay qaar hadda dee waa wasiiro qaar waa garyaqaano qaarba meel bay joogaan adoo dhigaya hadda oo haya tawaashiirta oo imtixaankii ka qaadaya ayaa beeshaydu waxay ku tashatay jooji waxbarashadan waxaan ku dooranaynaa xildhibaan ee mid aan anigu soo doontay ma ahayn hadal waa la wada yidho ku noqon maayo aniyo maxay tahay maxamed bal labadayaduba maanta waxaanu marti idinka nahay farta ina noo footaysaan oo soo saartaan idinkuna waxa xaq noogu leedihiin in nala xisaabtantaan hadhow oo aadna daba gashaan oo ana noqon Hargeysa fadhiista isna aanu noqon ka ceergabo fadhiista idin shaqeeya idin yimaada marka aa u baahan tihiin wixii aanu kari karo ee Ilaahay nagu ogyahay aanu idin la qabano wixii kalena dalka guud baynu la wadaagnaa baahiyo badan wixii dalka guudana anigu kale waan ballan qaadaya baarlamaanka iyaga iyo meesha aanu tagno inaanu bedelo baan isku dayna kooxaanu nahay hadaan soo baxno wajiga maanta yaala ee qabyaalada iyo eexda waynu ku bedelo wax qabad dalkani leeyahay binaadamku waxay leeyahay halka waxa nirigta u dana hashana u dana wixii dadweynaha Soomaaliland u dana ba inagana inoo dana waayo haddii ay sharciyadu khariban yihiin haddii dhaqaaluhu hoos fooraro haddii aynu maxay tahay cadaaladdu ay maqan tahay haddii aynu qabiil isqoqob iyo isku maqanahay dadkana waan idin sheegay markuu hoos isugu noqdo oo hoos isu eego wuxuu ilaa waa cadowga sare waayo kan hoosa cadowga hoosa ku noqonaya cadowga aad iska celin lahayd waxaan Ilaahay ka baryayaa inayna noqon kuwa hoos eega inuu noqono kuwa sare eega laba qolo inuu isugu nimi laba reero walaalo ah kala fogaanshuhu macna ma leh waxba ma sameeyo magaalada ceergabana inagoo malaayiin aynu wada joogno oo kuma kala maqlin waa sida iminka ay noo sheegaysay inantii hadlaysayna waxaynu isu nahay casabo baynu isku nahay waxa Ilaahay ka baryay inay noo sii korodho balantaa iyo go'aanka la gaadhay inuu noo shaqeeyo idinka waxaanu ka baryaynaa daacadnimo idinka qolada waayeelka ah iyaga waxaanu ka baryaynaa guurtidu inay iyagu hoggaanka inoo hayaan hoggaan wanaagsan hoggaanka qaloocan bariyahan dambe hoggaan aan qaloocnayn baanu idinka filaynaa qoladiina ah guurtida hoggaan aan qaloocnayn iyagu haday noo dhigaan waxba inaka xumaan maayaan kaasaynu Ilaahay ka baryaynaa anaguna waa soo dadaalayna idinkuna farta ma noogu ridaysaan maxamed ba
waa ka telefoonkiina dusha kaga dhegan markaad garan weydo haddaad telefoonkaaga dusha waxa kaga dhegan sticker yar haddaad xitaa magacyada loo xuso labada qof iyo calaamadii markaad meesha gashaan insha allah bismillaahi kariim waqtigu waa dhow yahay waxba inoo kama hadhin guul baynu rajaynaynaa insha allah